laakiin marka halka soo booqanay waxaan soo xasuusanay geedkii Allah u naxariistay waa in salaamayna dibadooshka siyaasadana anagu mudooyinka 10 sano dabadaan ku maqnaa qurba joog baan waxaan joognaa geedka xigmadda gobolka Togdheer gobolka xigmadda burco roobka helo waa deer joognaa burco kaaliya baan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان دي سلام من داود ديال مeel kasta joogtaan ba maanta halkan waxaan ku fadhinaa rag akhyaar oo aad u miisaan culus dhinacaygan midig waxa fadhiya injineer Xamse Xareed halkan igu xigay waxa jooga abwaankii wiigan bayn haystay ilaa idii abwaan Maxamed Shilke halkan waxa fadhiya agaasimaha tooshka siyaasadda Dr. Barkad Saleeman Galaal halkan waxa fadhiya gudoomiye mid kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer ugu firfircoon waa Cabdi Wali halkan maanta waxaan u nimi waan soo booqanay meesha sida laga dambeeyay xareediba jiifta iyo nimco waan iska soo booqanay akhyaar magaalada Barcays ugu timaamnahay laakiin marka halka soo booqanay waxaan soo xasuusanay geedkii Allah u naxariistay abwaankeenii weynaa Sooraan Ismaaciil Suule marka halkan waxaan isugu nimi inaanu mar hadaanu meeshii nimi ay tahay meelihii Sooraan markuu Barca loogu yimaado dadka uu ku soo dhaweyn jiray ku marti qaadi jiray waxaan niri aynu u duceyno ducada waxaan ugu hor bilaabayaa abwaan baa bilaabay Maxamed Shilke ayuu dhiibay bismillaahir rahmaanir rahiim dawadayaashu dhan waa salaamaya bahda tooshka siyaasadda isaga iyo saaxiibadiina waxa la soo dhawaada burco ku soo dhawaada gobolka Togdheer ku soo dhawaada halkani waxay ku dhowdahay bariyaha u dambeysay wax ku maqnaa xaggaas qurbo joog waxaan joognaa geedkii Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo abwaan Sooraan Ismaaciil Suule in Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo oo dhulkaynu uga ducaynay oo samada uga aqbalo qof wanaagsan oo shakhsi wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka baxay buu ahaa in Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhamaanteen aynu u ducaynay waanu isla garanay waa in salaamayna dibadooshka siyaasadana aad u mahadsan yihiin abwaan Shilke iyo abwaan Janno Gale iyo dhamaan asxaabta halkan isugu timi Cabdi Fataax oo ah runtii dadka aqoonta gobolka dhiso library-ga gobolka iyo waxa gacanta ku haya maanta waxaan joognaa geedkii Sooraan Allah u naxariisto wuxuu abwaan Soomaaliyeed gaar ahaan abwaan gobolka Togdheer ka soo jeeday runtii waxa la sheegay geedkan inuu dadka keeni jiray ku casuumi jiray geed aad u qabow oo ku dhex yaala meel doogo wanaagsan waxaan isla garanay inaan abwaanka u duceyno oo maanta halkan aan ku xusno kare faaiideysan inta joogna gobolka Togdheer magaalada Burco anagu mudooyinka 10 sano dabadaan ku maqnaa qurba joog baan ahay kale Hargeysa iska dabadii dibadda joog baan la mid ahaa marka abwaanka sida banadu sheegay dadkii ugu horeeyay waru duceynaa abwaan Sooraan Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo dhulka uga duceynaa Ilaahay samada uga aqbalo wuxuu ahaa nin goba oo runtii dadka quality-ga leh dhif iyo naadirka Soomaalida ku jira inuu kamid ahaa Ilaahay waxaan uga baran naxariis jannaha ka waraabiyo dadku jecel yihiin dhamaantood runtii hadii dadka marxaati badan u dhaco حديث بقى هاي نقف كاس إهله خير يهي هذه ضد بارسكور رعان والله مرخات فرن كاسينو وهاني وناكسن رسول الله شريع عليه الصلاة والسلام إنه قف كاس إهله خير يهي وعلى قبر على الله إهله تشنوية أبو صوران إلهي هون حريستو ومحسنتين marka hore dhamaantiin waan salaamnay meel kasta joogtaan khiyaarta ku xiran tooshka siyaasadda iyo dhamaan dadka kale Soomaaliyeedba mar labaad waxaan u mahad celinaynaa saddexdan abwaan amba suxufigeena weyn tooshka siyaasadooda nin qiimo badana waxaan joognaa geedka xigmadda gobolka Togdheer gobolka xigmadda afar nin oo helo sharaf ah ila jooga waxaan noo duceynaynaa Ilaahay uu naxariistay abwaankeeni weynaa mar maadaama aad timaadeen iyada barwaaqo ku soo beeganteen inaad nala joogtaan farxad bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan idin leenahay aad baa ugu mahadsantihiin gobolka ku soo noqotaan adinka iyo dhamaan ragga kale ee idin la midka ah gobolka maqnaa oo rajaynaynaa in badan wada joogno mar labaad iyo mar saddexaad baan soo dhaweynaynaa Ilaahayna waxaan ka baryaynaa halkan isugu keenno janna firdawsa isugu keenno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta aad baa ugu faraxsanahay maanta kan deena keenay Shilke iyo Cabdi Wali Janno Gale sida wanaagsan ay nagu soo dhaweeyaan iyo Barkad Saleeman magaalada Burco anagu dan si Ismaaciil Sooraan Ismaaciil Suule aragnay laakiin si wanaagiisa dad badan ba ka marxaati kacay ama ka marakacay marka
aad baan ugu faraxsanahay maanta meeshaan nimaadno roobkii baa da'ay dalxiisyaal badan baa yimi oo magaalada ka soo qulqulaya meel kasta la iskaga kala yimi dee burco roobku helayna dadku waxay dhahaan burco waa boodweyne burco roobku helay dadka badankoodu ma oga burco roobku helay ma deer joognaa burco kaalaya baan leeyahay dadka waad mahadsantahay saxi horta dee wixii lama iska reeb burco bal wallahi laakiin way soo dhaweyn mala dee soo dhaweyntu waa iska gobolnimadeena laakiin dee adugu in reeb burco barkhad reeb burco ahayd dhowr iyo 10 sano magaalada imika ka maqnaa baa ka yidhi qurba joog baa sheegtay intaa mar haddaan halkaas soo booqanay waxaan ka tegaynaa asxaabta la daawanaysa inay iyaguna u duceeyaan ilaahay u naxariistee sooraan ismaaciil sugle ninkii gobolka togdheer iyo ummadda Soomaaliyeedba ixtiraamka ka mudnaan jiray aadka loo jeclaa ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo inagana inagu kulmiyo sidaa iyo nabadgeliyo